gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland Maxamed Jaamac Abgaal ayaa si rasmi ah u daafuray adeega cusub ee dhinaca boosaha EMS oo muddo 25 sano ah oo aanay Soomaaliland ka jirin. adeegan oo ay dawladda Itoobiya u soo dirtay wafdi heer sare ah oo ka soo qayb galaya adeegan daafurka ay Soomaaliland iyo Itoobiya ka wada shaqeynayaan, waxaana goobjoog ka ahaa dhinaca Itoobiya wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Master Gadai iyo qusulka dawladda Itoobiya oo fadhiya Soomaaliland, xubno ka socday golayaasha guurtida iyo wakiilada aqoon-yahan ganacsato iyo marti kale iyo shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala gudaha Soomaaliland. ugu horeyn waxa madashaasi ka hadlay oo ka waramay ahmiyadda uu leeyahay adeegan iyo marxaladii uu soo maray gudoomiyaha boosaha adeegan la daafurayo Axmed Xaashi Oday. wuxuu ka waramay muddada uu qaatay furista adeegani iyo marxaladii uu soo maray. 191 dal baa ayaa qaatay inay ku shaqeeyaan oo Soomaaliland iyo Itoobiya iyo company-ga dhexda oo 3P system-kii la ku shaqeynaya. Akiba company-ga waa company Soomaaliland International iyo wasaaradda boosta isgaarsiinta iyo wasaaradda boosta Itoobiya saddexdaas ayaa ku midoobay inay mashruucan ka shaqeeyaan. dabeetana waxa walba waraaqo amba document amba wax ganacsi amba haday doonto spare part waxa la yaalo wixii la daranaya si ugu dhaqsaha badan la wadi 24 hours marka dareeto inay ugu yimaadaan iyagoo soo keen marna Soomaaliland Itoobiya Soomaaliland marna Soomaaliland iyo Itoobiya markay baxayaan marka mar walba saas systemkaas uu shaqeynaya. systemkan waxa weeye marada UN ta aragto waa intergovernmental maaha wax private oo ashqaas yeelan karta maaha. intergovernmental oo halkan ku yeeshay 3PP gan aad maqashaan waxa weeye waa inay dawladda iyo private sector-ka inay ku bahaysan yihiin oo qof leh qayb ka qaato. marka laba unit oo dawladihii ama Itoobiya ha noqoto ama Soomaaliland ha noqoto iyo unit company oo private ah saddexaas hawshii wadaya waana intergovernmental-kaasi oo waxa intergovernmental looga dhigeen in lagu caawiyo had iyo goor dawladahoo dhan ay ku xidhaan. EMS-kan markii hore boostu meel ogeyno AD 74 kii baa la sameeyay boosta labada dagaal ee dunida way ka horeysay. wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta dawladda Itoobiya Master Gadai oo isaguna munaasabada ka hadlay ayaa tilmaamay sida ay ugu faraxsan yahay inuu ka soo qayb galo daafurka adeega EMS oo ay Soomaaliland iyo Itoobiya ka wada shaqeynayaan. una tilmaamay inay tahay guul soo hoyatay Soomaaliland. gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye أنا مشرح مدحوينه موسى بيحي عبدي ومناسبة عسيكها اللي هي تلمامة إنها تهي جلوسه يتقارن كان وأن لهاي المدة بدن شن يلا 20 سنة أديك بوصها. مركورة وحنا ملينا يا كبريم أكيد يهوش سوق قبتي وحكوا ملينا لبدو وزارة دود إسكاشة كسمية وزارة البوست إثيوبيا يتصور ماليلاند لبدو وزارة دور ملينا يا وأديك وأنا يكسب ومسوق ربعي ما تهاجم عمري بدون من لما بضوا هالكم ربي يقولي هذا من بيريبان كورونا مدو حنا عاد سوين يا نكيد كبرياش هلا وضيش أو يان كلمة يراني وشكلها ضد هذا وضيش خيرات هلا وذاله تلونا يسمح من كان أضيف دولة ويقابيانو وحده بفرنسا شوي قابسان يانا حركة دولة استعملوا سي شركته هو المعاش عليه مركائن تعليم ولا أحد أنت مركائن بوه وحنا نحسه وحنا نحسه مانتا ذلك الأبار بعمر ولا الشركة مراحل كوركا مركائن كده تبغى باران تي أفريت الوقت كي قبلها مركائن تخليها هراي هي تي كومي السلام بقولش تدي لا تكين بها أو كره مركز تاريخ لا إيجو أبارك وين بتشتغل وبيه بعد بقى عن الواحد ذلكي حوله هو كمان يرمك وحنو بعنا هاي إن النور بيستخدمه إن النور ملوك الله سيدنا سلام بعد لها. gabagabadii waxaa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland Maxamed Jaamac Abgaal. wuxuu tilmaamay inay tani tahay dadaal ay xukuumaddu sameysay oo ay kala kaashanayso dawladda Itoobiya adeegana oo ka shaqeeyo in ka badan 194 dal oo dunida ku yaala. sida la sheegayo ee jirtana wasaaradda boosaha iyo isgaarsiintu labada qaybood bay ka kooban tahay waa boosaha iyo isgaarsiinta wali magaca boosaha horeeya nasiib daro ilaa maanta boosahaasi may hana qaadin oo may shaqeynin. alxamdulillah maanta ayaynu daafuraynaa oo shaqeynaysa waxaan lagu xamataan oo dalka lagu xantaa
shirkadaha isgaarsiintu way ka fogaadeen way ka hor hana qaadeen wasaaradda sidaa darteed sharciyada iyo nidaamka dawliga ah kuma wada shaqeeyaan oo ma ixtiraamaan wax badani waa xan ule wax jira maaha laakiin wax waa jiraan oo waa run way naga hor hana qaadeen dhaqanka iyo dabeecadaha dadka shaqeeya xilalka haya ayuunbaa isu kaay soo dhaweeyay oo dad wanaagsan ilaahay ka dhigay laakiin xilli adagna way ku soo shaqeeyeen oo aan nidaam jirin iyo dawladnimadeenu jilicsan tahay kala dambeynteenu hooseyso ayay maal geliyeen dalkan oo ka shaqeeyeen qalabka tiknoolajiga ayaguna waxaan daba iminka rabaa inaan liiftiimiyo maanta wasaaradii oo jirto oo dhisan iyo xeerarkii oo dhammaystiran ayaynu boosii furaynaa boosuu naga dheerayn maayaan waa maamulaynaa iyagu nagamay horgaan qaadine waanu maamulaynaa oo qacantaa ku haynaynaa waa sinaanaynaa waxoogaa isgaarsiinta shirkadaha waxoogaa waa eegnaa iyagoo waxoogaa xagga saraa dabcan wanaag iyo sharaf baan ku wada shaqaynaa waana nu mahadnaqayaa runtii horumarka dalka ay ka sameeyeen loona mahadnaqaya maya nambarka ugu horreeya dabcan madaxweynaha qaranka somaliland baale axmed maxamed maxamed siilaayo number 1 number 2 number wada koowaad xaq number 3 madaxweyne ku-xigeenka qaranka aaladee cabdiraxmaan injineerka number 4na marwada labaad dabcan halkaa markay soo gaadho ka shanaad cid iguma haystaan u malaynayaa